بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامج سؤالي جوابه aqoon guud ah barnaamijkan waxa idin soo diyaariyay halkaana jamacad kasta idin kaga soo jeedin doona walaalkiin Daawud Cali Daahir su-aasha koowaad ee barnaamijka waa imisa culeyska maskaxda maroodiga jawaab waa 7.5 kilogram oo culeys ah su-aasha labaad ee barnaamijka sheeg xayawaanka aan wax maqlin jawaab waa tixsiga su-aasha saddexaad ee barnaamijka sheeg buurta ugu dheer qaaradda Afrika jawaab waa Kilimanjaro su-aasha afraad ee barnaamijka sheeg wadanka ay ku taalo buurta Kilimanjaro jawaab waa wadanka Tanzania su-aasha shanaad ee barnaamijka sheeg magaca loo yaqaan codka faraska sameeyo jawaab waxa loo yaqaanaa danan su-aasha lixaad ee barnaamijka sheeg saxaabigii dilay aabihii oo gaal ah dagaalkii Badar jawaab wuxuu ahaa Abu Ubayda Aamir ibn Jarrah su-aasha toddobaad ee barnaamijka sheeg saxaabigii arkay Masiixu Dijaal jawaab waa Tamiim bin Aws su-aasha siddeedaad ee barnaamijka sheeg munaafiqii uu nabigu yiri qofkii doonaya inuu arko shaydaan ha eego kaas jawaabtu waa Nabtal bin Acsam su-aasha sagaalaad ee barnaamijka sheeg ninka kaliya ee uu nabigu sallallahu calayhi wasallam gacantiisa ku dilay jawaabtu waa Ubay bin Khalaf su-aasha tobanaad ee barnaamijka sheeg saxaabigii ugu horeeyay ee loo diray Madiina si uu dadka u baro Quraanka Kariimka ah jawaabtu waa Mus'ab bin Umayr haddii aad ka heshay barnaamijka fadlan nagu soo biir si aad u hesho mar kasta barnaamijka like-ta share-ka iyo commentiga waa dhankiina su-aashan waa su-aal idinkaga tagayo soo raadi walaal sheeg madaxweynihii ugu horeeyay ee Islaamka ee amray in 2 jeer la aadaamo salaada Jimcaha dhanka commentiga uga soo jawaab